السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa mar kale iyo cashirkii taxanaha inoo ahaa ee aan ku baranaynay luqadda Englishka waxa loo yaqaano buugga loo yaqaano Headway-ga. Cashirkan waxaa loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aan jaanis ku helin inay class fadhiistaan oo joogo dalkii ama wadamada Carbaha ama wadamada Europe ee aan Englishka looga hadlin sida Scandinavian-ka. sida cashirka hortiina ka muuqato maanta waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano vocabulary waxaa loola jeedaa ereyada cusub ama wax loo yaqaano new words. What is this in English? kan maxaa Ingiriiska lagu yiraahdaa? Vocabulary waxaa la yiraahdaa new words ereyada ku cusub qofka markii aad wax aadan aqoonin waxa luqadda Englishka lagu yiraahdo aad rabto inaad ogaato waxaa leedahay what is this in English? What is this in English? kan maxaa lagu yiraahdaa luqadda Englishka? What is this in English? kan maxaa lagu yiraahdaa luqadda Englishka? Number 1 write qor the words ereyada. Write the words ereyada qor. So ereyada waxaan ku qori doonaa meelahan banaan sida hadda number 1 number 2 number 3 meelahaas ayaan ku qori doonaa. A book waxaa la yiraahdaa buugga oo wax lagu qorto. A photograph waxaa la yiraahdaa sawirka. Hamburger waxaa la rootiga waxyaabaha la geliyo qudaarta. Sandwich waa sidoo kale waa nooc ka mid ah rootiga waa isagana waxyaabaha qudaarta la geliyo. A camera waa camera sawirada lagu qaado. A computer waa computerka oo aaladan computerka la isticmaalo. A television waa televisionka oo caadi marka saddexdan camera computer television waxaan filaynaa Soomaali gaar aysan lahayn marka waa kamerada caadiga la isticmaalo. Computer waa computerka television waa television so waxaad moodaa Soomaaliga inuu Englishka oo qayb ka yahay. A house waxaa leedahay guriga. A car waxaa lahaa baabuurka ama wax loo yaqaano gaariga. A bag waxaa la yiraahdaa boorsada. aan ku celiyo vocabulary waxaa la yiraahdaa ereyada cusub oo qofka ku cusub. What is this in English? kan maxaa lagu yiraahdaa luqadda Englishka? What is this in English? kan maxaa lagu yiraahdaa luqadda Englishka? Write the words ereyada inaad qorto ayaa laga rabaa xagga lagu qoraa nambarada oo sawirada ay wataan. Number 1 a book ama a book. A photograph. A hamburger. A sandwich. Book waa buugga caadiga. A photograph waa sawirka. A hamburger waa hamburgerka rootiga oo hilibkii waxyaaba la geliyo. A sandwich waa nooc ka mid ah rootiga oo slice loo yaqaano laakiin Soomaali inta badan aan laga isticmaalin laakiin dadka qurbaha jooga aad ay u yaqaaneen sandwichka. A camera waa kamerada sawirada lagu qaado. A computer waa aalad wax lagu qorto waxna lagu daabacdo. A television waa aalad wax laga daawado. A house waa guri. A car waa gaari ama baabuur. A bag waa boorso. waxaan filayaa inaad fahanteen ugu dambeyntii mar saddexaad aan ku celiyo vocabulary waxaa loo yaqaanaa ereyada cusub ama qofka ereyada ku cusub ee Englishka ah. What is this in English? kan maxaa lagu yiraahdaa luqadda Englishka? What is this in English? kan maxaa lagu yiraahdaa luqadda Englishka? wax kastoo aadan aqoonin magacooda waxaa dhahaysaa what is this in English? Okay, write the words qor ereyada. marka ereyada maxay yihiin sida lagu qori doonaa waxaa lagu qori doonaa meesha nambarada ay ku yaaliin. A book waa buugga. A photograph waa sawirka. A hamburger waa rootiga hilibka la geliyo. A sandwich waa nooc rootiga kamid ah asagana qudaarta iyo waxyaabaha la geliyo. A camera camera sawir loo qaado. A computer aalad wax lagu qorto oo lagu daawacdo. A television aalad wax laga fiirsado. A house guri. A car gaari. A bag boorso. marka waxaan filayaa inaad fahanteen soo qaabka loogu shaqeynayo hadda midka koowaad waa lagaga shaqeeyay a photograph. marka a photograph marka sawirkan waa a photograph. Number 2 muxuu noqon karaa waa a camera. Number 3 muxuu noqon karaa waa a computer or a television. Yes waa television ama TV. Number 4 muxuu noqon karaa waa sandwich. Number 5 hamburger. Number 6 a book. Number 7 a computer.
Number 8, a bag. Number 9, a house. Number 10, a car. waxaan filaa inaad fahanteen aad ka bogateen marka aad rabto marka inaad ogaato waxaa leedahay what is this in English kan maxaa lagu dhahaa Englishka what is this in English waxaa leedahay it is a photograph what is this in English it is a car so marka qaabkaas ayaa la isu weydiiyaa marka qofka marka aad inaad weydiiso kanoo kale waxaa leedahay number 2 waxaa leedahay what is this in English qofku jawaab wuxuu ku dhahaa it is a camera what is this in English kan maxaa lagu dhahaa Englishka it is a television what is this in English it is a sandwich what is this in English it is a bag what is this in English it is a computer what is this in English it is a hamburger what is this in English it is a book what is this in English it is a car what is this in English it is a house so marka qaabkaas ayay noqonaysaa marka kan maxaa English lagu dhahaa it is so marka the grammar is what marka fiirsan it is so it is wow a car it is a book it is a car it is a computer it is a house it is a hamburger it is a sandwich so qaabkaas ay noqonay marka listen and repeat ku celceli ilaa aad ka fahmayso waxaan filaa inaad fahanteen ugu dambeyntii hal mar aan ku celiyo casharkeena maanta wuxuu quseeyaa vocabulary oo yahay macnaheedu ereyada cusub what is this in English kan maxaa Ingiriiska lagu dhahaa write the words ereyada qor xagee lagu qoraa sawirada nambarada ayaa lagu qoraa a book waa buugga a photograph waa sawirka a hamburger rootiga waxyaabaha oo hilibka la geliyo a sandwich waa nooc ka mid ah rootiga asna khudaarta la geliyo a camera waa waxyaabaha wax lagu sawirto a computer waa aalad wax lagu qorto wax lagu daawacdo a television waa aalad wax laga fiirsado a house waa guri a car waa gaari ama baabuur a bag waa boorso marka what is this in English inta koowaad waa lagaga shaqeeyay what is this in English it is a photograph what is this in English it is a camera what is this in English it is a television what is this in English it is a sandwich what is this in English it is a hamburger what is this in English it is a book what is this in English it is a computer what is this in English it is a bag what is this in English it is a house what is this in English it is a car waxaan filaa inaad fahanteen marka what is this in English it is a photograph what is this in English so marka grammarka it is casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay waxaan filaa inaad fahanteen oo aad ku celcelin doontaan vocabulary-ga what is this in English and assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh